ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داودياش قيباه قدرتنا كبدان meel kasta dunida ka joogtaan kusoo dhawaada Cadmajiid Network fadlan subscribe saara channelka dadka cusub tahay like-ta iyo share-ta haylaagin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داودياش قيمها قدرتنا كبدان meel kasta dunida ka joogtaan waa mar kale 10 kale oo ku saabsan dhanka tiknoolajiyada daawadayaal muuqaalka waxaynu ku soo falanqayn doonaa inuu kaga warrami doonaa daawadayaal oo kula tafatiri doonaa barnaamij ku saabsan sidii aad ku ogaan lahayd haddii fariin lagu soo diray laga masaxo ama laga delete garayo tusaale ahaan qof baa fariin ku soo diray ama waxa weeye fariin qaldan ku soo diray kadibna uu delete gareeyay ama dib uga noqday oo fariintii adiga ku soo gaar lahayd eegi lahayd arki lahayd ayuu ka delete gareeyay marka sidee baad ku arki kartaa fariinta uu qofkaasi ka delete gareeyay ama uu ka masaxay daawade waxaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka ee soo dhaw fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir nana dhiirigeli like iyo share na si aan waxa way dhiirigelin noogu noqoto oo aan barnaamijyadan iyo kuwa kale oo fara badan oo runtii ku dhiirigeliya adigana sidoo kale ku xiiso geliya oo wax ku tara aan u soo gudbino oo aan mar kale kugu soo diyaarino ku soo dhawaada casharka daawade waxaan hadalkeedii ku badinay ugu horeyn hadaba daawade haddii aad doonayso inaad ogaato message ama fariinta lagu soo diray oo qofkaas ka masaxay tusaale ahaan imka haddii WhatsApp-kayga galo waan halkan idinka tuso qof baa wuxuu soo qoray tusaale ahaan message sarkasan qofkaasi message-da amba fariimihii soo diray waa uu delete gareeyay waa halka idinka muuqata uu delete gareeyay marka waxa loo xayisiin inuu imka ma garanayo markaasaan waxaan doonayaa inaan arko message-da qofkaasi iga delete gareeyay ee uga masaxay waxa way markii soo diray kadib inaan arko sidee baan ku arki karaa only one daawade waxa tagi doontaa insha Allah taala Play Store-kaaga kadibna waxaad ku qori doontaa barnaamijka la yiraahdo WAM application ee isku qori doontaa marka barnaamijka markaad ku qorto waxaad ka dooran doontaa nooca ka ugu sareeya aad ka dooran doontaa kamarad ku doorato barnaamijka runtii dad fara badan ayaa waxa way soo dejistay ilaa 10 milyan ku dhow marka waa 10 milyan marka daawade markaad ku dhufato install badan doonta aniga imka uu dejisay yahay marka open badan doonta marka ku soo dejiyo ku soo waxa weeye uu ku soo dago marka aad sameeyso waxaad ku dhufan doontaa accept baad ku sii dhufan doontaa accept marka tiraahdo okay accept inaga dheh haddana calaamada sii wad marka barnaamijka doonaysa inaad aragto fariimaha ee qofku ku soo diray oo ka masaxo barnaamijku doonaha noqdo hadda doonaysa in Instagram qofku markuu ka masaxo ee fariinta aad aragto doonaysa inaad aragto waad saari TikTok saari doontaa hadda doonaysa WhatsApp baan imka rabaa marka WhatsApp-kii caadiga hawaan igu jira markaas aan dooran doonaa kadibna waxaan ku dhufan doonaa next oo kalgan ku xigta next arrogan ayaan ku dhufan doonaa marka barnaamijka aad TikTok saarato ayuu ku tusi doonaa dhammaan message-da ama fariimaha qofku dad ku soo diraan ee ku soo gala mobile-kaaga ayuu ku tusi doonaa marka next baan oran doonaa halkan waan iska dhaafi doonaa dhamaantood next baan sii oran doonaa haddana next baan oran doonaa haddana next baan oran doonaa halka markaad marayso multimedia fileska enable baad ku dhufan doontaa enable markaad ku dhufato allow baad oranaysaa halkan haddana notification reader-kan enable baad isna oran doontaa kadibna marka wuxuu ku geyn doonaa application ku dhex geyn doonaa marka application-ka waa kan imka application-ka marka waxaan saari doonaa maxay allow baan isagana oranaya waad ka noqon doontaa kadibna next ayaad oran doontaa haddana TikTok calaamad baad sax sii saari doontaa oo liwari marka uu ku tusaya dhammaan wixii message ee qofku intuu ku soo diro ka delete gareeyo waxa kale barnaamijkan leeyahay statusyada dadka wixii soo dhigaan oo dhan halkan baad ka delete gareysan kartaa marka imka statuskaas kala doonaysa inaad delete gareysto kadib halkaad ku dhufan doontaa halkan calaamada arrowga hoos u jiida ayaad ku dhufan doontaa kadibna saas kugu delete saas waxa way kugu soo dejismay oo mobile-kaaga kugu galay marka qayb kale faa'iidana uu leeyahay marka waxa la wixii laga delete gareeyay halka lagu soo diray message-da halkan ku soo gali doona waxa la wixii fariina ee qof intuu ku soo diro uu dib u delete gareeyay halkan ku soo gali doona marka imka tusaale ahaan hadaynu qof tusaale idinka bixiyo
qofka ma markaas fariimihi soo diray imkoodiga arkay waxa loo wixii fariimihi soo diray oo qofkaas uu dhilid karay marka fariimahan uu soo diray seebaan arki karaa oo ogaan karaa waxa loo yihiin kaliya waxaan gali doonaa app-kayga baan tagi doonaa marka application-ka markaan tago kaas waxa loo message-da dhilid karay waa kuwaas ku qoran marka barnaamijyada dhammaan waxa loo wixii messages ama fariimo laga soo diro mobilkaaga ku jira halkan ayaad ka ogaan kartaa waa application-kan soo dejisto oo kaliya markaa xiga wax kale kaama xigaan aad baad mahadsantihiin daawadayaal inta ku kulmi doona barnaamijka mid lamid ah waxaan iskaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan subscribe saara channelka dadka cusub tahay like-ta iyo share-ta ay leeyihiin